diyaarad Israa'iil oo gantaal ku dhufatay magaalo madaxda Qatar ee Doha iyadoo halkaas ku dishay hogaamiyayaasha Hamas oo ka shirayay heshiisiin uga yimid Mareykanka oo lagu heshiisinayay ayaga iyo Israa'iil ayaa halkaas ku dishay hogaamiyayaashaas in magaalo madax wadan kaleeto lagu dhufto gantaal iyadoo uusan dagaal u dhaxaynin ayaa wax aan adduunka ka dhicin taas oo aad iyo aadna uga careysiisay wadanka Qatar iyo wadamada kale ee adduunkaba. Israa'iil ayaa waxay tiri halkaas waxaan ku dilnay hogaamiyayaashii Hamas kuwaas oo la doonayay oo ahaa kuwii ka wada hadlayay heshiisiinta, bal haddeertan waxaa loo fadhiyaa yay la heshiinayaan haddii baabi'inayaan dadkii la hadli lahaa.